السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال كسو دوادا channel كيني النقاي ميدي يوتيوب اي فيسبوك بيج واد ugu barteen inuu idin soo gudbiyo warar sports oo xaqiiqda ku saleysan maantana waxaan idin soo gudbinayaa jaraa'idada iyo waxay ka qoreen suuqa kala iibsiga Leeds ayaa la fahansan yahay inay ku dhowdahay inay aqbasho dalabka Barcelona ee Rafinha The Guardian ayaa sheegaysa in kooxda La Liga ka dhisan ay dalab 48 milyan gini ah soo bandhigtay taasoo laga yaabo inay gaarto 57 milyan oo gini si ay u hesho garabka Brazil Chelsea ayaa xidigan ku iibsatay 5 milyan oo gini bishii hore laakiin 25 jirkan ayaa lagu soo waramayaa in uu qalbigiisa ku sii jeedo Camp Nou dhaqdhaqaaq weyn ayaa laga yaabaa inuu u socdo Newcastle maadaama ay ka fiirsanayaan heshiis rikoor naadi ah oo ay ku doonayaan weeraryahan cusub Magbis ama Newcastle ayaa wada hadallo la yeelatay Real Sociedad sidii ay ula soo wareegi lahaayeen xidig reer Sweden Alexander Isak oo 22 jir ah sida laga soo xigtay Telegraph laakiin waxay u baahnaan doonaan inay qarash gareeyaan ku dhawaad dhammaan miisaaniyadooda suuqa kala iibsiga taasoo la micno ah inay bixiyaan wax ka badan 42 milyan oo gini oo ay ku soo iibsadeen khadka dhexe ee Bruno Guimaraes bishii Janaayo Cristiano Ronaldo ayaa runtii doonaya inuu Lionel Messi kula ciyaaro Paris Saint-Germain sida ay warinayso Express wargeyska oo soo xiganaya Le Parisien ayaa sheegay in 37 jirkan weerarka ka ciyaara uu u soo bandhigay adeegiisa kooxda Faransiiska laakiin ESPN ayaa ku waramaysa in Paris Saint-Germain ay diiday maadaama aysan haysan dhaqaale ay ku daboolaan mushaarkiisa Mirror ayaa sheegaysa in Chelsea ay u dhaqaaqayso saxiixa weeraryahanka Robert Lewandowski kaasoo qarka u saaran inuu ka tago Bayern Munich kuna biiro Barcelona 33 jirkan Poland ayaa muujiyay rabitaankiisa tartan cusub kadib markii uu kooxdiisa Bundesliga ay qaaday koobkoodii 10aad oo xiriir ah Chelsea ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto Napoli si ay ula soo wareegto Kalidou Koulibaly sida laga soo xigtay Sky Italy heshiiska ayaa la filayaa in la xiro maalinta Arbacada ah qiimo u dhaxeeya 32 ilaa 33.7 milyan oo gini daafaca dhexe ayaa sidoo kale la filayaa in loo soo bandhigo qandaraas 5 sano ah oo ku kacaya ku dhawaad 160,000 oo gini toddobaadkii sanadkiina 8.2 milyan oo gini Koulibaly hal sano ayaa ugu haray qandaraaskiisa Napoli ayaa shalay fiidnimadii tababarkeeda ugu horeeyay ku qabatay jamaahiirta horteeda balse ma uusan joogin Lewis Ferguson waxa uu xaqiiqsaday hamigiisa caruurnimo oo ku doonaya in uu dibadda u ciyaaro kadib markii uu dhameystiray wareegistiisa Aberdeen kuna biiray Bologna 22 sano jirkan ayaa ugu dhaqaaqay kooxda ka ciyaartay Serie A qiimo dhan 3 milyan oo gini ciyaaryahanka qadka dhexe ee Scotland ayaa u sheegay Red TV runtii aad ayaan u faraxsanahay waxaan qabay dareenkan inaan ka ciyaaro dibadda in muddo ah u guurista wadan kale waxay noqon doontaa qaab nololeed oo kala duwan iyo qaabka kubadda cagta laakiin waa wax aan weligay doonayay inaan sameeyo tan iyo yaraanteydii inaan aado oo aan u ciyaaro dibadda oo aan istijaabiyo